isku soo dhaqo wanaagsan mar kale saaxiibayaal waxaan ku leeyahay habeen wanaagsan maalin wanaagsan waqti waliba ay ku tahay oo wanaagsan maanta waa jimco alaaba barnaamijkan waxa waaye barnaamijkii faaqidaada ama saadaalinta kulamada la ciyaarayo sabtiga iyo axadda soo dhawaada saaxiibayaal mar walba waxaan saadaalinaa kulamada big sixka maalinta Britain waxaa dhici doona kulamo dhowr ah halka kooxda Arsenal ay ciyaari doonto maalinta axadda arbayna gudaha u galo macluumaadka shirkadda waxay ku sheegeen ciyaartooyda ka maqan yaa soo laabtay waxa soo dhamaaya kula wadaagi doona balse marka hore magacaygu waa Cabdul Caagane cadaawanaysa Caagane podcast haddii aad markaa kugu horeysay oo soo boqoto fadlan waxaan ka codsanaynaa page follow dhahdid laagtaadu waa muhiim oo muuqaalka meel dheer ay gaarsiinaysaa haddii aad hore ila joogtay ma kuma sita la joogistaada ila jaaqadkaada u sii share garay saaxiibadaada saan u helna saaxiibo qaaliya sida adigoo kale soo dhawaada saaxiibayaal waayahay kulankan ugu horeeya kooxda Man United ayaa away kula soo ciyaari doonto kooxda ka dhisan magaalada London ee Brentford Man United kulankoodii ugu dambeeyay waxay ka adkaadeen kooxda Chelsea Brentford saan ognahay xilli ciyaareedkan waxaa laga iibsaday ciyaartooy dhowr ah oo muhiim ah kabtankoodii macalinkoodii labada xidiga weerarka ugu ciyaaraya sidaa daraadeed Mbeumo ayaa dib ugu soo laaban doona kooxdiisii hore gool miyuu ka dhali doonaa haddii aan saadaaliyo kulankaas Man United miyay kulankoodii labaad oo xiriira miyay horyaalka Premier League dhibcaha heli doonaan waxaa ku saadaaliyo kulankaas inuu ku dhammaan doono hal gool iyo waxba ay ku adkaan doonto kooxda Man United kulankan labaad waa kulanka kooxda Liverpool ee la ciyaari doonaan kooxda Crystal Palace Liverpool markii ugu horeysay miyaa laga dhigi doonaa dhibcaha nognahay kooxda Crystal Palace koobkii Community Shield ayay ka qaadeen mar walibana Liverpool markay u baxayaan aad iyo aad ayaa loo dhibaa kooxda Liverpool ma tahay kulankii dhibcaha laga qaadan lahaa ama diro ugu yaraan hal dhibic laga reebi lahaa dhinaca kale kooxda Liverpool waxaa la filaa Brito inuu ku soo bilaaban doono leedapan oo heli doono Alexander Isak maadaama Hugo Ekitike oo red card qaatay kulankii oo la ciyaarayay kooxda Southampton ka tirsanaa koobka Carabao Cup sida daraadeed Ekitike waxaa lagu sameeyay 2 isbuuc lacagteeda ayaa laga jaray kooxda Liverpool waxay ku dhaheen maala yacni u qaada red card miyaan ku dhahnaa anaga Liverpool ayaa la soo baxday weji kale ciyaartoydana ay si caadi loogu sheegay ciyaaryahankii kas u qaatay red card waa dabageli doonaa inuu red cardka sax ahaa iyo in kale waa arki doonaa balse haddii fanaanad rasiiba iyo ama wax kala sameey iyo maala yacni red card u qaatay iyo mishaarkaada ayay ka go'an tahay waa sheekadooda sida daraadeed Hugo Ekitike mishaarkiisa ayaa laga jaray waliba waa 2 isbuuc kooxda Liverpool ayaa heli doonto Alexander Isak oo ku soo bilaado kulankiisii ugu horeeyay horyaalka Premier League haddii aan saadaaliyo Liverpool oo Isak wadato markaan ka duwan kooxdii hore ee la ciyaartay koobka Community Shield miyay Liverpool ka adkaan karaan kooxda Crystal Palace haddii aan saadaaliyo kulankaas marka aan ku saadaaliyay inuu ku dhamaan doono ciyaartaas waliba ciyaar la isku murxa ayaa noqon doonta kulankaas darowga ayuu ku dhamaan doonaa oo waliba darowga wuxuu noqon doonaa min 2 gool adigana qaybta hoosena la wadaag saadaalintaadu waa maxay waayahay kulankeena saddexaad waa kulanka kooxda Chelsea markii ay soo dhaweyso kooxda Brighton Chelsea oo guul darro soo dhamisay kulankoodii ugu dambeeyay ee horyaalka Premier League Chelsea ayaa qaabili doonta kooxda Brighton macalinka Chelsea wuxuu shirkii jaraamaad ku sheegay in la heli doonin Cole Palmer Tosin iyo Fofana balse waxaa taageerayaasha Chelsea good news u ah waxaa dib u soo laabtay Badiashile iyo ninka lagu magacaabo xidiga khadka dhexe ka ciyaara ee lagu magacaabo Lavia Brito waa la heli doona ayuu yiri macalinka balse ma hubo in lagu soo bilaabi doono sida daraadeed Chelsea oo Palmer la'aan ah kooxda Brighton miyay ka adkaan doonaan Chelsea oo la daalaa kulanka u dambeeyay laga soo adkaaday gurigooda miyay guul ku qaadan doonaan sida daraadeed kooxda Chelsea oo guul darro soo dhamisay kulanka u dambeeyay Cole Palmer la'aan miyay 3 dhibcood ka tirsan doonaan kooxda Brighton alaaba markay gurigooda kula ciyaarayaan kooxda Brighton Chelsea waa ka adkaadaan oo dhibco muhiim ah ay ka qaataan balse waxaa dar markay away kula soo ciyaarayaan Brighton kooxda Chelsea iyo Brighton waxaa ku saadaaliyay in ciyaartaasi ku dhamaan doonto mid hal gool kulankan ugu dambeeya waa kulanka kooxda Newcastle markay soo dhaweeyaan godka jilco waliba ku soo dhaweeyaan kooxdii Arsenal ahayd Allah Arsenalay garoonka saa u necabtiin balse xilli ciyaareedkan ma la cabsi karo waayo boos walba waxaa ka wadatiin 2 xidig macalinka shirkadda jaraada Arteta wuxuu ku sheegay kabtankiisa Odegaard inuu la train garay doono maantay iyo Brito kadibna ay ka fiirsan doonaan inuu ciyaari karo in kale balse booskiisa Isia joogo problem ma jiro Arsenal taageerayaasheeda waxaa good news ah difaacoodii maylka adkaa Saliba ayaa waqti dheer u saxiixi doona qandaraas waliba wuxuu qaadan doonaa 250 wuxuu sii joogi doonaa kalaabka 2030
haddii aan u soo laabano marka saadaalinteena kulanka Newcastle kooxda Arsenal garoonka Newcastle mar waliba dhib ayay kala soo kulmaan haddii aan saadaaliyo kulankaas Arsenal ayaa ku soo badi doonto 2 gool iyo 1 intaas ku soo gabagabeynaa maantay muuqaalkaygii saadaalinta kale waxaan ka codsanaynaa haddii taa markaad kugu horeyso oo soo boqoto fadlan page-ka follow dheh muuqaalkan lag badan siiso u gaar saaxiibo badan haddaad hore ila joogtay oo ka maarsantaa la joogistaada u sii share garay saaxiibadaada saan weyn la saaxiibo qaaliya sida adigoo kale inta ku mid doona muuqaalka xiga sidaas iyo nabadgelyo